toddobaadkan iyo sahanka nolosha. talow daahir ma ka soo bixi doonaa xujada aabbihii uu xujaystay. aniga baa idin fiirsanayay adiga iyo gabadhan waxaan u malaynayaa inaad jeceshahay gabadha marka guurso. aabe maxaan ka guursadaa anigaaba nafteedu wax u qaban karin cid kale maxaan u qaban karaa aabe. daahir marmarsiyo weeye warkaasi kowdhe waxaan kuu diidayaa inaad dembi dhexda ka gasho oo dembi aad ku dhacdo daahirow. guurso gabadha dee inta kalena ilaah baan u dhaafaynaa waana sii baxayaa hadda hadhow baan isku imaanaynaa hadduu allah awoodda la ogolaado. mooge wuxuu dib u ceshan doonaa xaawakiin ma laga yaabaa inay dib dambe isugu faraxsanaadaan oo ay nolosha qaybsadaan. arrintan sunnada waafaji ka markhaati ahaada inaan aniga oo mooga ah dib u soo ceshaday xaaskayga qaali ah ee xaawakiin. daahir waxaa u imaan doona mukhallas talow muxuu samayn doonaa. saaxiib daahir way fududdahay arrintaas waxaan kaa caawin karaa inaad riyadaada rumaysid yurub ayaan ku geyn karaa. oo sidee arrintaas macquul ku tahay inaad yurub ku riyootid waa gar daahir saaxiib naftaada ma u aaminsan tahay sida aan anigu ku aaminsanahay. ha moogaan riwaayadda sahanka nolosha jimcahan saacaddu marka ay tahay 2:15 galabnimo taasi oo ka soo geli doonta idaacadda Star FM idaacadda codka gobolada dhexe iyo raadiyaha SBC. waa inoo iyo xilligaas. sahanka nolosha